السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن oo wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan si kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa madasha lixdanka oo alaaba aad uga barateen in idin soo gudbiso wararka waraysiyada barnaamijyada ku saabsan Soomaaliya iyo Soomaalida intiina badan caawa waxaad isweydiinaysaan talow madasha iyo marti u ah xageesa laga hadli doonaa waxaa caawa madashan tigisiga marti noogu ah afayeenka qurbo joogta gobolada bari waa Zakariya Cali Xaaji Saciid oo si toos ah khadka telefonka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kaga jiro. Zakariya kusoo dhawow madasha lixdanka. dhamaantiinba waa mahadsantihiin waan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaar ahaan wariyaasha asita suudi iyo adiga iyo inta kale oo qolka maamulka kamidka ah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin. Zakariya aad baad u mahadsan tahay su-aasha ugu horeysa Zakariya aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ayaa waxay tahay hadalhayn badan ayaa waxaa jirtay muddooyinkan Soomaalida isla dhexmaraysa gaar ahaana marka la eego gobolka bari waa gudoomiyihii hore ee gobolka bari Cabdisamed Maxamed Galan oo gaaray deegaanka Carma siyaabo kala duwan bay saxaafadda uga warantay marka adiga maadaama afayeenka gobolada bari aad tahay muxuu safarkaasi daaran yahay? Okay, أنا مرة بعد dhamaantiin baa salaamaya qolka inta ku jirta inta aan isnaqaan iyo inta aan isna aqoonin ba iyo maamulka mar labaad waa u mahad celinaya mudane aan Cabdisamed Maxamed Galan waa isla hadalaa aniga macnaha maalin kasta iyo habeen kasta inta waa isla hadalaa intuu satagin Carmana waa isla hadalay isagoo joogana waa isla hadalay Carma waa deegaankiisi waa gurigiisi familkiisi baa ku nool dadkiisi baa ku nool iyada iyo Boosaasan waa is saareen waxba isuma jiraanba dad badan waxa jira degmada Carmo ku nool oo Boosaaso u shaqo tago oo ka soo noqda marka maadaama aad la socotaan Puntland in carqalado siyaasadeed oo hareeyay darteed dad badan oo maamulka Puntland kamid ahaa ay ku gacan saareen ka baxeen sida qaatumo kale oo long time ka baxday deegaano kale oo mataqaanaa family kale ay degan yihiin ama deegaanka mudug ha noqoto ama nugaal ha noqoto banaan laakiin aysan maamulka habba ku hayn dhag siyaasadeed oo siyaasiyiintaas banaanka ay uga carareen marka Galan reasonku u yimid waxay ahayd arrimo u gaar isaga iyo familka uu ka dhashay yeerid loo yeeray iyo arrimo kale oo aan hadda qolka uga hadli karin ruuxaantii isagoo iyo ciidankiisa way yimaadeen danihii iyo arrimuhu kala ahaana wuu fushiday xero waxaa jirta u dhow degmada Carmo markii laamiga laga dago oo ciidamada Galan ay degan yihiin qolyahan gorowana ay ka warqabaan oo og yihiin laakiin lisuma gudbo liskuma xadgudbo marka wuu yimid si nabadeed buu ka yimid si nabadeedna wuu ku baxay wararka sheegaya in gudoomiyaha xilligan gobolka bari mudane Yusuf Maxamed Buucays dado iyo siyaasiyiin iyo ganacsato kala sugan gudaha iyo dibadda ay indabaalado ay wadeen dadaal ay ku dhaxdhaxaadinayeen Galan iyo gaas oo siyaasaddu kala fogaaday arrintaasna ay ka dambeysay in gudoomiyihii hore ee gobolka bari Mr Galan uu yimaado soo gaaro deegaanka Carma arrintaa ma jirta miyaad leedahay walaal horta waxaa jirta wax la dhaho propagandada dadka markaas propagandada fidinaya sidii raamba u isticmaali karaa anaa hadda idii xaqiijinaya Cabdisamed Maxamed Galan isaga oo laba wiiloo waardiyo staff gurigiisa ay joogaan baa 200 oo ciidana iyo contact technical Boosaaso ku weerartay ilaahay qadartiisna markaas ciidamo isaga dariskiisa ahaayo ciidamadiisa kamid ahaayo laakiin u dhawaaba u soo gurmaday wuuna ka badbaaday ila ma aha marka qof kasta oo caqli leh waa fahmi karaa ninkii shalay Galan soo weeraray oo rabi inuu dilo oo meedkiisa ka dhex qaado gurigiisa oo ku agdilo ama ku hordilo ciyaalkiisa iyo xaaskiisa ilama inay si fudud walaalka cali ku heshiin karaan mana dhici karto hadday dhacdo taasna waa qadar ilaahay qoran laakiin nimankii shalay Galan weeraray oo Cabdulla Cali Gaas mas'uulka ka ahaa iyo kuwa hadda Boosaaso jooga ma u maleynayo Galan inay soo fariisan karaan ama laga shaqeyn karo waawaantooda nimankan Cabdulla Cali Gaas iyo xulufadiisa lama diidana in la doortay oo si dastuuri loo doortay inuu shacabku doortay iyo golay baarlamaanka lama diidana
laakiin dembiyada ay ku kaceen waa dembiyo xilka looga xayuubin karo waa dembiyo dadka deegaanadaas degan ay ku takoori karaan oo isaga saari karaan wey dembiye aad u tiro badan bay galeen qaladaad badan bay galeen warkaas waa war kuturkuteen oo propaganda ah weeye sidii baa lagu kala maqan yahay waa jiraan niman odayaal ah ama isima ha noqdaan ama maamulkan puntland ha ka tirsadaan oo garowe waa jiraan oo gallan wacay laakiin wax tanaasul uu gallan ama kuwan kale ay sameeyeen ma jirto gallan weli wuxuu taagan yahay wixii gobolka bari ka maqan baan anagu doonaynaa wixii shacabka gobolka bari ka maqan baan doonaynaa wax annaga aanan lahayn aanan xaq u lahayn dooni mayno wixii anagu xaq aan u leenahay baan doonaynaa marka arrintaas sidaa waxba kama jiraan been wey walaal ha laakiin zakari dad badan baa waxay isweydiin karaan wasiirka amniga puntland cabdi xirsi qarjab horey wuxuu ugu oodeeyey banaanbixii rabshadaha dheliyey ee boosaaso ka dhacay mister galan oo wuxuu yidhi maxkamad baan horkeeni doonaa arrintaa ayadoo ay jirto oo ciidamada puntland la ogyahay inay ku sugan yihiin deegaanka carmo oo carmona meel ah booliska soomaalida lagu tababaro marka galan oo ciidan wato oo hadday arrintan dhexdhexaadinta aysan jirin sidoo markaa deegaanka si nabadgelyo ah intuu u yimaado oo dadka uu kula shiri karaa firi intuusan qarjab hadlin ka hor waxaa ka horreeyey dada iyo wiilkii la taliyaha taliyihii booliska ahaa gobolka bari oo isaga dambiye badan aan ku haysano oo welina xilka sii haya baa intay shir jiraad qabteen waxay yidhahdeen exactly sida hadda sheegtay siduu qarjab u hadlay haddana qarjab baa hadlay laakiin intaasoo dhan waxaa dhaqay oo beeniyey markuu hadlay madaxweyne ku-xigeenkii garowe oo ah ina camey wuxuu yidhi gallan waraysigiisa si fiican u dhagaystay oo dib ugu noqday youtube-kay ku jirtaa gallan waa mudane muwaadina xilna kasoo qabtay deegaanadan puntland wax carqalad iyo wax dhib uu ku haayo deegaanadana ma jirto hadalkay si fiican u dhagaysaya waana wada hadlaynaa bu yidhi wada hadalna waa noo socdaa so taas waxay beenisay nimankan oo gurubaysiga wadayo isgurubaystay oo qof kasta oo gobolka bari u hadla ama ku shaabadeeya waa al-shabaab ama xamar baa lacag laga soo siiyey si qofkaasayta dadka ay uga takooraan iyagoo siyaasad dadban dadka u isticmaalaya si qof kasta oo runta ka hadlay u takooraan waxaa beeniyey ina camey baa beeniyey ina cameyna waa madaxweynaha ku-xigeenka puntland weeye oo garowe qarjabna isagaa ka sarreeya kan taliyahan booliska ah bari iyo ninkan governorka bari dhadana isagaa ka sarreeya so imagine marka madaxweyne ku-xigeenki markuu ku yidhaahdo adiga unod waxa lagugu sheegayo ma aad tihid waa been way waa lagula hadli karaa waana lagula fariisan karaa taas maxay ku caddaynaysaa in ay iyagu dambiile yihiin wey laakiin zakariya warkaba waxaa jira oo saxaafaddu qaar ay tabinayso ah in maadaama nidaamka xisbiyada badan ay puntland u gudubtay in guddoomiyihii hore ee gobolka bari galan loo ogolaaday inuu furto xisbi siyaasadeed oo xaqiisana halka uu ka raadsado marka arrintaa ma jirtaa arrintaas walaal wax ka jira ma lahan galan waxyaalaha isaga u diyaarsan baan rabaa inaan wax yar kaaga taataabto galan iyo cabdiweli caligaas haddii lagu yidhahdo ma wada hadlaan been baa lagu sheegay cabdiweli caligaas wuu wacaa galan wuu la hadlaa ina camey wuu wacaa wuu la hadlaa isimada nugaal iyo mudug jooga way la hadlaan niman kale oo tijaari iyo siyaasiyiina way la hadlaan dadkan waa dad ehel oo qaraabo oo wada dhashay ilaah baana deegaanka ku abuuray inay wada hadlaan danta guud iyo maslaxada guud ka wada hadlaan waa wax waajibo iyagoo dhan wada saaran waayo ciyaalka iyo dumarka iyo deegaankan ay u daneeyaan ma fahantay laakiin marnaba isaga tii uu shalay ku taagnaa galan kama uu tilaabsanayo wuu la hadlaa wuuna u sheegaa danta isaga ka go-an galan waxaa ka go-an walaal shalay puntland markay puntland ahayd dad baa wada dhistay garadyaa joogay suldaamaa joogay beeldaajaa joogay isimada puntland waa dhamaayeen maanta isimada puntland waa waxba kama joogaan waa ebel wey wax la buriyey iyo wax la baabi'iyey way dhamaadeen galan wuxuu taagan yahay war dadkii shalay puntland wada dhistay oo xalaasha ahaa aawe ma joogaan deegaanadii shalay puntland la isku dhihi jiray aawe ma joogaan okay dastuurkii aad tirahdeen waa la wada samaystay dadkii wada samaystay ma joogaan badankood way baxeen oo qaatumaa kamid a deegaano kaloo badan baa kamid a okay cadaalad daradan iyo musuq maasuqan dadku ay tabanayaan ama mudug ha jooga ama nugaal ha jooga ama bari ha joogaan ama sool iyo sanaag ha joogaan cadaalad daradan iyo musuq maasuqan dadku uu ka tabanayo ama uu ka qaylanayo waxa keliya oo lagu badbaadin karaa dadka deegaanadaas dego dhan oo wada dhashay in waxaan review lagu sameeyo dastuurkan in review lagu sameeyo in maxkamado deegaanka loo dhiso
in cadaaladda iyo mataqaanaa iyo sinaanta dadka ay wada deeqdo oo nin kale uusan koobkiisa qaadin oo qabiilku ama ha yaraado ama ha badnaado la xushmeeyo deegaankoodana lagu xushmeeyo dadka mujtamaca ay kamid yihiin lagu xushmeeyo oo lagu qiimeeyo laakiin taas iyada ah qolyahan hadda maamulka haysta ma ogolaan mana rabaan ama wasiir ha ballan qaadaan ama xisbi ha ballan qaadaan anigu haddaan idin sheegaya walaalayaal iga rumaysta ninka walaalkaya adiga waa taqaanaa dabanka uu dalacsan yahay laakiin zaki aniga oo reer bari ah marnaba ma aqbalayo nimanka walaalahayo maamulka puntland haysta dabinka ay la damacsan yihiin dadka deegaanka u dhashay ana hadda taas idin sheegaya waa clear way galana ma yeelayo nimanka kale oo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo macquulkana marna ma yeelayaan waayo ninka adiga walaalka wuxuu yaqaanaa dabinka dhigayso wuxuu yaqaan waxaa damacsan tahay wuxuu yaqaanaa musuqmaasuqa dadka oo damacsan tahay intaba anagu dad yeelaya ma nihin dad waa jiraan siyaasiyiin oo la socda maamulka puntland oo weli la shaqeeya anagu we respect them waa xushmaynaynaa fikirkoodana waa qiimeynaynaa laakiin walaal dee qof kasta maalin buu kasoo baxaya oo runtii xaqiiqada arkaya dadku ma wada sina zakariya markaad leedahay siyaasiyiintu ma yeeleyso oo dadkan kala duwan oo hadda aad magac dhaweyso tirinaysid waan ognahay hadda puntland 1998 baa la dhisay isimaa dhistay inkastoo arrinta khaatumo ay ka duwan tahay oo odayaashii isimadooda dhaqanka ay shiro jiraayad ay qabanayeen aan warbaahinta kala socono laakiin adiga waxaa tahay afhayeenka gobolka bari anagu hadda weli saxaafadda weli maan arag odayaashii dhaqanka oo shir jiraayad qabanaya oo dhahaya anagu arrinta hadda puntland qaabka ay ku socoto raalli kama nihin siyaasiyiin hadda khaasatan adiga beesha kasoo jeedo kale guddoomiyaha hadda gobolka bari oo kale waa isla adigu beesha kasoo jeedo xildhibaanana waa ku leedahay wasiirana meesha waa ku leedahay dhammaantoodna cid hadda warbaahinta la hadashay mise la ogyahay ma jiraan markaad leedahay siyaasiyiinta ma yeelayaan yaa ula jeedaan firi shir baa wuxuu ka socday boosaaso bishii hadda lasoo dhaafay oo dhan shir baa ka socday oo weliba beesha gaar ahaan anigu aan ka dhashay uga socday waxay ku samaysteen guddi 50 xubnood ah maamulkan gorowana waa ka warqabaa dadka deegaanka bari dego dhanna waa ka warqabaa qabiilada kale oo bari dega dhanna waa lamid shirarkaas waa u socdeen guddigaas 50 xubnood kamid la sameeyey guddigaaseeto waa guddi u danaynaya deegaanka guddi danaha dadka fiirinaya shacabka waa guddi aanan ka amar qaadan maamulka iyo dadkan kaleeto oo ama hala dhaho muxuu ahaa galan oo kale hala yidhahdo ama qof kaleeto hala yidhahdo dadka marka deegaanka degan maanta inay tashtaan oo ku yidhahdaan anagu maamul ahaan guddigayga annagaa samaysanayna anagu ku hoos imaan mayno nala tashi noqon mayso wixii naga go-a waa ku keenayna waa wax u sababo wey walaal musuq maasuqa dado aniga inaan ilmaadeernahay ma diidanin laakiin dado anagu ma aanan dooranin shacabka gobolka beri degana ma doonanin cabdulla cali gaas iyo xulfadiisaa soo watay way keensadeen meesha so taas waxay caddaynaysaa inay iyagu meesha keenaan hadda maayirka oo kaleeto waa la doortay dadkao dhan baa u codeeyey dhib male laakiin dado aniga ina adeerkay dadki meesha keensta buu u shaqeynaya uma shaqeynaya shacabka gobolka bari waa nin fiican waa nin aqoon-yahana kuma diidani intaasoo dhan ma diidani waa nin deegaanka u dhashay laakiin cabdulla cali gaas baa keensaday meesha doorasho kuma uusan imaan so he's gonna do only cabdulla cali gaas wuxuu dhaho samay unbuu samaynaya mifant isagoo og dhibaatada iyo qalabka meesha ka jira dadkiisa iyo isaga wada hadal baa u socda way wada hadlaan qaladaad badan buu og yahay waxyaalo badan buu yidhi waa saxayaa but how long is gonna take next 100 years next 50 years dada intuu ka saxaya qaladaadka waa nin deegaanka u dhashay wax kasta wuu ogyahay laakiin markuu yidhahdo anaa saxaya oo cabdulla cali gaas warqadaha uu hor dhigo ama maamulka puntland uu hor dhigo I don't think way ka qaadayaan waayaha un bay leeyihin mifan taasna wax laguma saxi karo marka dadka 90% laka waxay raacsiin hadda gallan waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego maalin hore wiilal moorcasa ah oo ka tirsanaa ciidamada puntland weliba BNSF iyo afar waxay wateen gaari cudad ahaan inta ay yihiin ma qiyaasi kara ma sheegi karo run ahaantii laakiin afar gaari oo technica wata waa la socotaan bari bay ka baxeen kaatumay ku biireen waxay u dhasheen gobolka bari moorcasa wey ivan marka maxay tahay sababaha ay khaatuma ugu biireen sababahay ugu biireen waxa walaal puntland ma lahan dowladnimo han qaade ma lahan waa maamul qabiil wey hadda jifida qabataba wixii oo dhan isku wada qaadanaysa haddii ciidan noqon lahayd haddii ay jagooyin noqon lahayd wax oo dhan so exactly dhibaatada hadda galan uu tabanayo iyo shacabka uu ka dhashayba iyaguna tabanaya
mifad wiilashii dhalinyarada ahaa oo ciidamada ku wada jiray waxaan la hadlay wiilashaas aniga hadda gadooday oo qaatamo u tegay waa la hadlay kulli waa la hadlay waa niman wax bartay kulli jaamacada ugu qalan jabiyeen boosaaso niman filatjiso wiilashaas waxay ii sheegeen macnaha wiilasha shalay baadiyaha ka yimid oo xidiglayaasha ama xidig aan qabin baa maanta cornela bay yidhahdeen sakariya annagii 7 sano 8 sano ciidanka ahayna weli nalama dalacsin macnaha waxyaala dadka ay qaadan la yihiin way mifad wiilashaas waa PNSF ku jiray ilaa 7 wiil baa la hadlay oo PNSF ku jiray oo tabar fiican qabay lama dalacsinin darxumada meesha ka jirtay iyo musuqmaasuqa markay arkeen waa isaga baxeen waxay yidhahdeen midaan mid sii jiraysa maaha zakariyo adigu afayeen gobolada bari baa tahay dhegeystayaal fara badanna hadda waa ku dhegeysanayaan marka si aan u faahno waxaa tiri waxyaabo kala duwan baa ka hadashay bal adigoo koobayo waxa aad ka cabanaysaan iyo qaabka hadda adigoo afayeen gobolada bari baa tahay inta beelood oo afayeen aa u tahay iyo waxa aad ka cabanaysaan si ay dhegeystayaasha u fahmaan waxyar faahfaahin kooban naga sii okay bismillahi raxmaan raxiim dadkan meesha ku abuuran waa dad aad iyo aad u tiro badan wey waxaan diidnay oon inta horena aan u dulqaadanaynay annagoo deegaanaana xeerinayna tolnimada xeerinayna soomaalinimada xeerinayna waxaan diidnay oon mar dambana aan u dulqaadanaynin in wax kasta hal famil ay qaataan totally macquul ma noqonayso mara dhacayso waxaan diidnay in 4 wiil oo ilma adeer ah midna uu maxkamadda qabsado midna booliska qabsado midna kursiga madaxweynaha ku fariisto midna militariga qabsado taas waa diidna waayo cadaaladdu waxay ku imaan kartaa markii dadka deegaanka degan ay wixii wada qaybsadaan maxkamadda waa inaad ka muuqato booliska waa inaad ka muuqato militariga waa inaad ka muuqato laamihii dawladda waa inaad ka muuqato iyo hayadihii dawladda markii intaas aan soo tiriyey aan idin sheego hal famil ama 4 wiil oo ilma adeer ay ka muuqato macnaha macquul ma geli karto for example baa rabaa inaan siiyo waa very easy simple way wasiirka maaliyadda Puntland wasiirka dawladda iyo hawada wasiirka ninka maxkamadaha haysta Puntland ninka madaxweynaha ka ah Puntland kulli waxay isku wada yihiin waa taqaaneen waa wiil iyo seedigis 2 ilma adeer ah fiiriya waa ninka maxkamadaha haystay iyo Cabdulla Cali Gaas waa wiil iyo seedigis wiilka wasiirka maaliyadda iyo ninka maxkamadaha haystay waa 2 wiil ilma adeer ah kii dawladda hawada haystay iyo Cabdulla Cali Gaas waa wiil iyo seedigis kii maxkamadda haystay waa wiil iyo adeerkiis kii taliyihii booliska ahaa bari haystay Cabdixakiim oo dambiyada badan galay iyo Cabdulla Cali Gaas waa 2 ilma adeer oo naxmiya ma hal famil baa marka annagoo Puntland u dhalanay oo intaas la eg oo qaran ah ma hal famil baan daba fadhiisanaa marka oo seerta naga yeelayso no macquul ma noqonayso mana yeelayso nifan intaas way intaan diidanahay marka ma kala hadasheen arrimahaas hadda aad taxday oo aad ii sheegtay ma kala hadasheen madaxda Puntland ma kala hadasheen marna way og yihiin laakiin waa liisyeelyeelaya walaal runtan ku sheegaya waa liisyeelyeelaya laakiin ma kala hadasheen way og yihiin maaha sakari weli ma la fariisateen ma lagala hadlay arrimaha lagala hadlay galan baa la fariistay oo kala hadlay ninkan taliya intuu galan ahaa governorku kala hadlay wuu la fariistay arrimo badan buu hor dhigay ninka weliba taliyaha booliska haystuu kala hadlay inuu mataqaanaa anshixii iyo dastuurkii iyo wixii inuusan ilaalinaynin isla markiiba galan shaqadaa laga buriyay automatically muxuu madaxweynaha ku jawaabay markii lagala fariistay arrintan la hor dhigay markii la hor dhigay wuxuu yidhi okay waa kasoo tashanaya within weekna warqad oo resign buu u diray uu leeyahay markuu governorka haska resign garay haddana intaan la weerarin ka hor way ka wada hadleen wuxuu yidhi anigu masiirka bari baan u doodayaa Cabdulla wuxuu ku yidhi anigu qolkaana waa kusoo xiray galan wuuna ka hadlay Cabdulla wuxuu yidhi galano adiga personal ila hadal jaga waxaarta ku siinay galan wuxuu yidhi anigu jaga ma rabo laakiin dadka shacabka oo deegaanka u dhashay waxay xaq u leeyihiin maadaama intaas dulinsanaayeen oo mataqaanaa ay dul qaadanayeen waxaan anagu ku faraxsanahay oo hadda ku nahay dadka shacabka waxay habi ku yihiin ama ay raalli ku yihiin ay rabaan wax walaal iyagu xaq ay u leeyihiin dadka maamulka aan sheegay wax iyagu xaq u leeyihiin anagu ma rabno doonana mayno waa ceeb wey waa xaraan calag wey laakiin dadka deegaanka waxay xaq u leeyihiin baa la rabaa dadka deegaanka maxay xaq u leeyihiin waxay xaq u leeyihiin boosaaso waa magaalada ugu dhaqaalaha badan bay kamid tahay magaalooyinka Soomaaliya 200 oo tuulo baa ku hareeraysan dadka deegaanadaas degan baa iskuulada lacagtooda ku dhistay dadka deegaanadaas degan baa lacagta macallimiinta bixiya
dadka deegaanadaas tuulooyinkaa degan baa isbitaallo dhistay maamulku wuxuu u qabta male cashuurta ugu badan dadka bixinaya iyaga waay halkay sifiican udhegeyso anigu inaad garacad iyo burtille iyo inaad el inaad dhisato anigu raalli baan kaaga ahay anaa ku faraxsan weer family laakin maxaa diiday 200 oo tuulo oo ku hareereysan boosaaso inay musqul la-aan noqoto inay noqoto biilaan inay noqoto inay isbitaal la-aan noqoto isbitaallo 20 milyan 30 milyan hay'adaho dhan aad leexsato tuulooyinka aad geysato haddii aad adigu qabiilka lafaha kaa gelin haddii adigu dad jeclaysi aadan wadin haddii adigu nacayb aad u qabto gobolka bari aadan na tusinin so let's be smart dhowr iyo 20 sano meeshaan dadkan degan yihiin hadda inta qabta dhacday dhowr iyo 10 sano maamulkan waa jiray maxaa dadkan dad badan oo hadda waxaa jira adoo iga raalli ah dad badan oo anigu aan kamid ahay runtii xaqiiqda marka laga hadlo anigu waxaan aaminsanaa fikriye waxa la yidhahdo Puntland baan aaminsanaa marka hore laakiin maanta anigu ma aaminsanin waxaan aaminsanahay fikriye ahaan iyo dad badan oo ila mid ah oo ila ra'yi ah in Puntland dad dara gaara leh ay ku shaqaystaan magacaas inay isticmaalaan ama aniga ha igu dulmaan ama adiga ha kugu dulmaan ama Soomaaliyeed ha ku dulmaan laakiin Puntlandti aan ku heshiinay oo annagoo dhan naga dhaxaysay ma taala meesha waa only nin dana gaara leh wey waa nin aan maslaxadaada ka talin karin waa nin aan labada nin oo isdagaashahaysa heshiin karin oo isu keeni karin waa niman aan labada isinoo isqabata aan isu keeni karin waxa maamulka haysta nin raba inuu isimkaaga caayo oo tijaarkaaga xiro oo adiga ku caayo oo adiga ninka maamulka haysta waxa waaye ninku dhahaya adiga deegaankaaga anaa iskale adiga deegaanka 1991 baa imaantay maba deganeenba meeshaan maba aada deganen war anigu xaggee deganaa deegaanka shalay adaa igu yimid maya adigu 1991 aniga isku mar baa imaana deegaanka 1991 ma aada deganeen deegaanka sakri waa mahadsan tahay dhegeystayaasha nagu soo biiray waxaad la socotaan oo madashigisii barnaamij gaar ah aan ku wareysanayna afhayeenka qurbo joogta gobolada bari zakariya cali xaaji saciid oo si toos ah qadka magaalada Minneapolis uga jiro zakariya su-aal kale haddaan aan ku weydiiyo magaalada boosaaso maanta waxa ay sheegeen ciidamada amniga inay la wareegeen gurigii nin kamid ah oo sheegtay inuu geeska Africa daacish hogaamiye u yahay bay sheegeen ciidamada amniga inay la wareegeen marka haddaad ka waranta guud ahaan amniga magaalada boosaaso iyo gobolka bari waa sidee boosaaso amnigeeda iyo deegaanada kale ku hareeraysan iyo gobolada kale ku dhigan sida Nugaal iyo Mudug iyo kulli whatever ama Soolisan meelahaas oo dhan isku wada dar dadka shacabka ah baa walaa horta nabadda aad u jecel wax kastana iyaga iska qaban kara nimankan hadda maamulka ordaya meelaha ordaya linkiga iyaguba soo galay waxaan xasuustaa maalinkii garacad nimankan ay badda ka soo degeen intaysan eel u gudbin nin kasta oo wax garadana waxaan ka hadlay waa fahmi karaa rag badan oo xogogaal ah oo isugu jiray tijaarna waa la hadlay niman maamulka ka tirsan baa u tegay oo 4 gaari oo technical ay 5 gaari oo technical wata oo ciidan ah oo dress qaba oo uniform qaba oo maamulka Cabdulla Alkaas ka tirsan oo hebel iyo hebel la dhihi karo nimankii baa loo tegay waa la isa salaamay waa la isa hagereeyay information baa la istaafsaday waana laga soo noqday okay nimankii iyaga ahaa way soo gudbeen dhinacan elba yimaadeen ninkan farola la yiraahdo iyo Siciidare iyo ninka la yiraahdo Muhiidiin iyo rag badan oo siyaasiyiin oo Nugaal u dhashay inkastoo maamulkan Puntland dadku u wada dhashay haddana qolo kastaba deegaankeeda waxay diyaar u tahay inay daafacato wax kastoo soo weerara marka runtii xaqada laga hadlo maamulka Puntland ma uusan difaacin dhibaatada ka dhacday eel iyo agaarka u dhow ma uusan difaacin ciidamada ma geen dhaqaalana kuma uusan bixin Muhiidiin iyo Siciidare oo deegaanka Nugaal u dhashay iyo Farole baa difaacda deegaankooda iyagaa dadkii waxay ka qaban karaan qabtay waxay duugi karaan la duugay dadkii la soo qabtay marka oo saas ahaa teleefanadoodii iyo sir iyagoo ay bixiyeen waxaa laga helay niman ciidan ka tirsan maamulka Cabdulla Alkaas inay liid gareynayeen inay iyagu hogaaminayeen waxaa ka mid ah raggaas hadda aan afka ku dhufanaya Ismaan Afdalow idaacadahana waa la diiday Puntland in laga hadlo wariyaashu inay ka hadlaan waa la diiday Siciidare weeye ninka home arrest ku sameeyay mibanti Cabdulla Alkaasna waa ogyahay isimka beesha uu ka dhashana way ogyihiin
mibanti qof kasta oo reer puntland taasoo ogyahay iyo dadka guriga joogo dhan abdullo ma maqasheen mar dambeeto maya home arrest gurigu ilaa hadda ku jira laakiin balfiria waa nin dhan oo liid garaynayo wey dhowr nin oo kaleeto oo saasana way ku jiraan maamulka ma waxaa leedahay taliyaha amniga gobolka bari afdalow baa wax ka ogaa soo gelitaankii al-shabaab gobolada puntland ismaan afdalow yes taas anaa ku xaqiijinaya walaal sidee marka lagu cadeyn karaa inuu markaa sidee adigu taas anaa ku xaqiijin kara rag badan oo maamulka puntland isku daya inaa wacdaan dad badan oo waxgaradana inaa wacdaan isku dayo anigu hebel iyo hebel kuma dhahayo laakiin rag badan oo isima ah ama tijaar ama siyaasiyiin oo puntland u dhashay oo weliba deegaanadaas u dhashay bari iyo nugaal baan la hadlay iyagana ay xaqiijiyeen maalinkii home arrestig laga dhigay ay xaqiijiyeen ma fahantay wariyaasha iyo kullina waa la hadla waa laga diiday dhexdoodana waa isku qabsadeen waxay yidhaha been baa laga sheegaya okay sidee been looga sheegayaa teleefanada baa lacagaa la isugu kala wareejiyaa markii lagugu qabto transaction teleefonkaaga lacagaad ku wareejiso is proof markii lagugu qabto nimanka afka duubta oo aad wacdo teleefonkoodi laga hela numberkaagi iyo magacaagi is proof wax lagaa been sheegaya macan oo weliba lacag adigu aad ku xawisho teleefonkaaga mibanti marka ninka hadda ay sheegayso leedahay gurigiisa lala wareegay iyo kuwo kaloo badan baa buuxa meesha laakiin maamulkay ku jiraan arontik inuu hal qof yahay ama laba qof laakiin ammaanka haddaan dib kugu noqdo ammaanka iyo dadka inay ammaankooda sugtaan dadka shacabka nabadda jecel dadka shacabkana ammaankooda sugtaan anu saasaan aaminsanahay hadda bishii lasoo dhaafay dhalinyaro badan baa loo tago meel iska fadhiya waa la laayay inaad ogtihin in kale ma ogi niman tuuta qabay haayeen nimanka waxaa hadlay ninka guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari baa hadlay oo wuxuu yidhi nimanka afka duubanayo way laakiin anagu reer bari haddaana waa isnaqaana gaaridina waa la yaqaana nimankina waa la yaqaana stiil garta waa lagu dhex jiraa niman kaloo haddana bibita fadhiya sidoo kale waa loo yimaaday sidoo kale xabad baa lagu furay magaalada hadda boosaan kula hadlaayo habeenka haddii 6 iyo 8 la gaaro laisma dhaafo dadka cuqdada markay soo kala dhex gasho dadka bilaadanka ma fiicna hadda waxaan rabaa qolkan inaan uga tacsiyeeyo nin suldaan ah oo 3 beri ka hor lagu dilay gaalkacyo aana loo dilay waa suldaan ismaaciil cali salebaan weye aabihiisa suldaan ahaa qaraxyada wuxuu ku dhintay dhowr bilood ka hor xamar aabihiis allah u naxariisto isagana wuxuu ku dhintay gaalkacyo gacanka xaq daran baa dishay aano oo loogu aaneynayo ninkii lagu dilay boosaaso oo ahaa muxuu ahaa nuur adduunyama la dhahay allah u naxariisto isagana sidaas darteed baa loo dilay marka dadka cuqdad baa soo kala dhex gashay walaal dadka cuqdad baa soo kala dhex gashay zakari haddaan ku weydiiyo su-aal arrimahan ka baxsan dhawaan waxaan ogeyn inay heshiis magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland ay ukala sixdeen dowlad goboleedka puntland iyo dowladda dhexe soomaaliya heshiiskaas adigu see u aragtaa shaksiyan aniga sakri ahaan before intuusan ninkaan saxiixin ka horan ka hadlay anigu sakri ahaan waxaan aaminsanahay soomaalida hadday intay meel isugu timaado kismaayo isugu yimaadeen xamar bay isugu yimaadeen garowe isugu yimaadeen kulliga ku kala kaceen hadday mar soomaalida isku timaado kii ugu dambeey weliba laisugu imaanaya xamar buu ahaa maamul goboleedyadii markaas jiray iyo dadkii gobolada iyo deegaanada matalayo o dhan waxaa looda ogolaaday inkastoo diintu xataa raalli ka ahayn diiniyin iyo deegaana dadku laakin haddana in mataqaana 4.5 la qaato maadaama last couple years la haystay si ku meel gaar ahaan maaragtay inta dawladda yarta aan haysanay isnaga burburinin in la qaato marka cabdiweli wixii isaga u gaara gaar wey laakiin anigu fikrad ahaan sikri ahaan waxaan aaminsanaa horena waan aaminsanaa barnaamij xataa magaalada minneapolis lagu sameeyo 4.5 lagu taageerayo waa tegay soomaalida meesha u badato inaad adigu ka hari karin oo 1% aad ka tahay deegaanada puntland oo dhan hadday soomaali israacdo meelaad uga harto walaal ma jirto waa been haddii aad tiri anaa ugu tiro badan soomaali aniga waxaanan go-aamin ma soconayaan aniga haddaysan soomaali taladeeda yeelin muxuu ahaa wax dhaqaaqi kara iyo wax soconaya maha waa been wey shacabka puntland iyo shacabka deegaanadaas degan oo dhan hadday soomaali israacno waa ku kasbana inaan raacno anuu saasaan aaminsanahay maadaama anaga 1% aan ka noqonayno or 2% or 3% waayo soomaalida kalaa naga tiro badan zakari adoo mahadsan waxaan maraynaa waraysiga gabagabadiisii waxaa soo celisay
3.5 dhegeystayaasha badankoodna waxaa laga yaabaa inay wax 3.5 yahay isweydiiyaan markaad leedahay 3.5 maxaad ula jeedaa 3.5 waa maamulka puntland ka jira oo weligiis ku dhisnaa way taasna anigu waa qeexaya qolkan waxyaalo badan oo waxaa laga yaabaa inay mamnuuc ka yihiin qabiil la sheego in bahalka la sheego laakiin maadaama anigu aan wax kasta jeclahay inaan iftiimiyo waan idin iftiiminaya puntland inta ay dhisnayd iyo inta ka horeysayba dadka deegaanka degan wuxuu ku wada deganaa kala damayn xushmad iyo tanaasul dadka walaalaha ay isku tanaasulaan iyadoo sadbuursigu jiro iyadoo cadaalad darrada ay jirto iyadoo musuqmaasuq uu jiro markii aan aragnay ama aan ogeyn sida koonfur ay noqotay kismaayo jubbooyinka xamar xabadaha ka socday dagaalaha ka socday dadku waa qaxayeen dhibaataa jirta biyo la-aan cunto la-aan si taasoo kale marka aysan reer puntland aysan noogu dhicin inaan anagu markaas iyada isku talaasuno ilaa beri intay dawlad rasmiga ka imaanayso hal family baa meesha haystay that's why aan u dhahnay no more 3.5 waa saddexda famil oo aniga aan maadeerta nahay ee maxamuud saleebaan ismaan maxamuud cumar maxamuud iyo ciise maxamuud maxamuud saleebaan waa hal jifi oo kamid a majeerteen beesha la yidhaahdo hartigoo dhanna waa u dulqaadanayay daaroodkao dhanna waa u dulqaadanayay majeerteenkao dhanna waa u dulqaadanayay talada iyagaa lahaa caasimadda iyagaa qaatay baarlamanka iyagaa badankood xoog ku haystay madaxweynaha iyagaa qaatay hartiguna dulqaad uu dulqaatayba intaas kusoo gaartay daaroodka kalena dulqaad uu dulqaatayba intaas kusoo gaartay majeerteenka kalena dulqaad uu sameeyey iyo tanaasul uu sameeyey intaas kusoo gaartay so puntland oo dhan waxay ku dhisnayd waa 3.5 saddexdaas famil oo walaalaha ah oo aan sheegay oo anagoo dhan walaalo waa wada nahay wada dhashay laakiin saddexdaas famil ma ahana inta kale mar kasta waa laga badsanaya wax kasta oo macaan waa laga qaadanayay iyaguna waa u saburaayeen waa dul qaadanayeen laakiin hadda waxayba taagan tahay no more 3.5 anigu ma rabo 5 inaan noqdo 3 haddaa adigu tahay ana 4 baan ku noqonaya ma fahantay adiguna 5 baa ku noqonaysaa ku xigana 6 buu ku noqonaya qorshuhu waa saas waay marka zikriya hadiiba puntland sida aad sheegaysaba haddaan u qaadno oo muddo waxa weye ilaa 1998 puntland meelaha ugu nabadgelyada badan soomaaliya bay tahay horumar kala duwan baa ka socdo hogaankana marba qof baa qaban lahaa marka sidaa haddii horeyba puntland ay ugu soo dhaqmaysa hadda maxaa isbedelay hadda waxaa isbedelay dawlad rasmiya imaatay hadda waxaa isbedelay soomaalidii kala tagtay oo isan maceed ba hadda isjeclaatay oo xaqiiqda ogaatay hadda waxaa isbedelay baarlaman soomaali ay leedahay igu dacwootay leedahay ninkii diidi lahaa iyo ninkii yeeli lahaaba dawladda soomaaliya haddaan anigu rabo inaan lugaha qabto ama aan lugaha jiido caalamka dawladaha ugu qanisan oo ugu waaweynna ay aaminsan tahay sida hadda russia oo kale maraykanka iyo canada waxba kama qaadi karti anigu sidaan aaminsanahay dawlad rasmiya soomaaliya ka jirta maxkamad dastuuriya baarlaman hadda golihii sanadka hadda la dhisaya insha allah soomaali waa way heshiisay waxaana lagu heshiiyey wax la dhaho federalism taasoo ah qolo kastaba deegaankii degto in lagu xushmeeyo oo lagu qiimeeyo dawladduna ay ku kaalmayso hadday iyada iskaba kartana ay iskabto wixii dawladdu u qaban kartana ay u qabato laakiin adigu xaqaygana waxaa rabtaa inaad qaadato kaagana inaad qaadato mid kastana inaad qaadato macquul ma noqonayso taas de taas way tan keentay inaan dhahno ma rabno inaan ka doodno way tan zikriya adigoo aada u mahadsan su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayaa weliba su-aal si shaksiyan adigaan ku weydiinayaa zikriya adi waxaa kamid tahay dadka qurbo joogta ah soomaaliya waxaan ognahay in 26 sano burbur dagaalo sokeeye weliba dhinacyo kala duwana ay dadka noloshooda u saameysay qaar ku qasabtay inay wadankii ka barakacaan puntland waxaa lagu tilmaamaa meelaha arrimaha inta badan soomaaliya dhinacyada kala duwan ka dhacay ka badbaaday horumar kala duwana hadda ka socdo oo waati hadda eelabooro caalami ahba laga hirgelinayo marka adigu maxaa xal u aragtaa waxaa xal u aragtaa in qori la qaato oo nidaamka hadda dhisan in la burburiyo mise xal ka duwan sida hadda galan oo kale oo aan arkayno in ciidamo badan isku wareejiyey oo aad moodid inuu aada u hubeysan yahay xalku ma in qori la qaato ku jiraa mise xal kale adiga ku talinaya sidee adiga wax u aragtaa zikri aniga sida xalka u arko waxa waaye review in lagu sameeyo sikriyahaan anigu xalka waxaan u arkaya dadka ila fikradda ah in review lagu sameeyo dastuurka puntland in review lagu sameeyo baarlamanka puntland
in review lagu sameeyo muxuu ahaa nimanka siyaasiyiinta puntland oo dhan wax kasta in review lagu sameeyo dadkana cadaalad baa deeqda iyo sinaan dadkana cadaaladda loo soo celiyo for example markii nugaal hal hay-ad ay ka howlgasho barina waa inay hal hay-ad ka howlgashaa markii mudug hal hay-ad ka howlgasho waa inay deegaanada kalena hal hay-ad gashaan laakiin 36 ama 37 hay-adood baa timid last year puntland 37 howlba waxay ka howlgalaan mudug iyo nugaal ama nugaal kaliya ka howlgalaan macquul ma noqonayso aawo deegaanadii kala too deegaanka anigu fikri ahaan waxaan qabaa cadaalad haddaynan waxba ku wada qaybsanayn ama sinaanta iyo kitaabkana qur-aanka iyo dastuur anagu aan wada samaysano iyo xushmada walaaltinimo iyo talmo haddaynan isku haynin anigu waxaan qabaa lagu kala daray puntland awalba shalaba ma dhisnayn walaal gacali puntland taa lagu sheegayo shalaba ma dhisnayn dadka lacagta ugu tirada badan ku bixiyay reer bari bay ahaayeen dadka dhaqaalaha ugu tirada badan ku bixiyay reer bari bay ahaayeen dadkii gorowe maanta dhisay oo mataqaanaa inay caasimada xamar ama hargeysa inay la kartanto inay ay dhinac istaagto dadka usoo lahaa reer bari bay ahaayeen iyo dadka kaloo magaca puntland sheegta iyagana maanta xushmad looma hayo qiimana looma hayo anigu waxaan qabaa ha burburto hadday burburto maxaa dhacay shalaba annagaa dhisnay maantana waa dhisaynaa kaasi wuxuu ahaa afhayeenka qurba joogta gobolada maasuq iyo cadaalad darro uma sii dulqaadan karo waa mahadsan zakariya kaasi wuxuu ahaa afhayeenka qurba joogta gobolada bari zakariya cali xaaji saciid oo madasha sigisi waraysi gaar ah siinaya zakariya aad iyo aad baad u mahadsantahay adaamad waa aad iyo aad baa umahadsantahay